بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka koobaad dhammaan ardayda halkan isugu timid waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaynu qaadanaynaa waa mid ka mid ah xiisadeenii aynu jaamacadda ku qaadan jirnay laakiin maanta aynu go'aansanay inaynu public ka dhigno ama aynu ugu talagalnay maadaama aynu ka hadlayno mowduuc muhiim ah aynu maanta soo gaarnay in ay nala faa'iideystaan walaalaheena kale ee halkan aynan inagula sugnayn marka maanta waxaynu bixin doonaa tababar ka mid ah kooraskii hore inoogu soo dhamaaday ee ka hadlayay maareynta mashaariicda gaar ahaan qaabka qorshe loogu sameeyo mashaariicda marka project planning baynu hore u soo dhameynay planningka markii aynu soconay ama qorsheynta ayaynu laba u kala qaadnay waxaynu nidhi maadaama kulliyadda aad dhigataan ay tahay kulliyadda maareynta mashaariicda mashruuc waliba oo la qabanaya wuxuu u baahan yahay in qorshe loo sameeyo laakiin waxa aynu sheegnay in ay jirto oo kale inuu shakhsiga ama qofka bini'aadankiina uu u baahan yahay in uu qorshe loo sameeyo oo uu qorshe u sameeyo noloshiisa oo isagu qorshe yeesho marka tababarkan maanta aad qaadanaysaan waxa laga yaabaa in uu noqdo tababarkii ugu muhiimsanaa ee aad qaadataan dhammaan noloshaadii intaad noolayd oo dhan inta dambe ee ilaahay kuu qorayna ku anfaca haddii ilaahayna gaarsiiyo tababarkan markaa waxa uu ka warramayaa qaabka uu qofku qorshe ugu dejin lahaa naftiisa gaar ahaan dhammaan noloshiisa oo dhan qaabka uu qofku qorshe ugu sameyn lahaa waxa laga yaabaa mararka qaarkood ama in fara badanba in aad dareento noloshaadu in ay iska muxuu ahaye maalayacni tahay ama ahdaaftii loogu talagalay aanad weli gaadhin ama aad isleedahay waxbaa kaa dhiman marka qorshe qaybtan cilmiga maanta aynu barayno waxaynu ugu talagalnay in dhammaan wixii inaga dhiman oo dhan haddii ilaahayna gaadhsiiyo aynu ku kafar garayno waayahay markii haddaba la baadhay ee la diraaseeyey maadaamuu yahay tababarkii qorshaha oo dhan goorma ayaa waxaa la yidhi tababarkan oo kale qofku uu u baahan yahay horta mar kasta uu u baahan yahay haddii weli noloshaada aanay qorshe lahayn inaad qorshe aad u dejisato laakiin wakhtiga ugu fiican ee la baadhay ee la yidhi qofku tababarkan waa wakhtiga ugu wanaagsan u qaadan karo waa markuu soo dhammaysto dugsiga sare ee uu soo gelaya jaamacadda waayo tababarkan waa tababar aad u dheer waa qorshihii nolosha oo dhan waxa ugu horeeyu ka warramaya waxa weeyaan in aad noloshaada fiil ama takhasus aad u samaysa weeyaan marka ardaygu marka uu form 4kii ka soo baxo ee uu jaamacaddii soo gelayo ma kala garanayo keebaad gashaa ama wax laga yaabaa inuu fakalti uu maskaxda kaga jiro laakiinse hadhow toole marka uu jaamacadda ka baxo ayaa laga yaabaa inuu ka murugoodo wixii uu dhigtay ama meeshii munaasibka ku ahayd inaanu qofkii soo gelin marka sidaa awgeed waxaa yidhi tababarkan oo kale markay ugu fiican tahay marka weliba dee nolosha qofka ay u bilaabantana waa markaas uu ka soo baxayo form 4kii kadibna uu soo gelaya jaamacaddii waayo noloshii oo dhan ayaa wakhtigaasi bilaabmaysa marka idinka tababarkan waxaan idinka soo qaaday oo keliya qaybtaad uga baahan tihiin waan ka soo booday qaybtii ka hadlaysay sidee baa takhasuska loo doortaa maxaa lagu doortaa waxaasoo dhan waayo dee already idinku jaamacadda baaba dhigataanba imika welibana dee sanadkan haddii ilaahayna gaadhsiiya dhammaantiin waad wada qalin jabin doontaan insha allah waayahay marka aynu iska bilaabanno in nolosha qorshe loo sameeyay ma aha mid bilaabantay ama in si scientifiga iyadoo loo diraasayo qofka uu noloshiisa qorshe u sameeyo ma aha arrin maanta soo bilaabantay waxa la yidhi people's interest in the issue of time management and organization interestka ama xiisaha ay dadku u hayaan inay maareeyaan noloshoodu waxa ay soo bilaabantay baa la yidhi the 20th century qarnigii 20aad ee ina dhaafay marka meelaha 30nadii iyo 40nadii ayaa la bilaabay in la diraaseeyo qaabka qofku noloshiisa uu qorshe u samaysan lahaa marka the first thing that started with was the agenda wixii ugu horeeyay ee lagu bilaabay qorshaha nolosha ama in qofka qorshe samaysto cilmi ahaan wixii ugu horeeyay soo horbaxay waxa loo bixiyay waxa loo yaqaano to do listiga waxa haddii aynu soo koobno af Soomaali ahaan waxa loo yaqaanaa waa jadwalka shaqada macnaha waxa weeyaan in aad noloshaada shaqooyinka ku yaala aad jadwal u samayso oo aad tiraahdo ma intaasoo shaqaa ii taalla kaasaan u baahanahay kadibna waxa yimiday nin caana oo loo yaqaano Stephen Covey ninkaanan garanayn waa inuu taariikhdiisa soo baadho waa professor weyn oo caana oo cilmigan ragga hormuudka ah marka ninka Stephen Covey wuxuu u bixiyay to do listiga the first generation of time management jiilkii ugu horeeyay ee maamulka iyo maareynta waqtiga ayuu bixiyay marka markii ugu horeysay
ee la yiri bal adraasaysan nolosha iyo muxuu ahaayay waqti in loo sameeyo oo la maareeyo markii ugu horeysay waxa la soo saaray jadwalka loo yaqaano to do listiga kadibna Stephen Covey ayaa sii hormariyay to do listigi waxa soo baxay wax loo bixiyay the second generation sida 2G oo kale ayaa loo bixiyay magaciisa imka internetka kala wad maqashaan 3G 2G 4G macnaha waxa laga wadaa waa third generation fourth generation saasoo kale ayay ka dhigan tahay second generation ki to do listiga markii laga soo gudbay generation ki labaad waxa loo bixiyay the schedule waa jadwal kii hore waxa la yiri waa to do list kaliya ta waxa ku qornaa shaqooyinka haddana Stephen Covey wuxuu soo kordhiyay in shaqooyinkaas loo sameeyo jadwal oo la yiraahdo mesela shaqo hebel waxa aan qabanayaa maalintaas shaqo hebelna waxaan qabanayaa maalintaas shaqada kale waxaan qabanayaa maalintaas sidaas loo wadi haddana wuu sii hormaray cilmigu markasta waan idin sheegi jiray waa update weeyaan maalinba wax cusub ayaa ku soo biiraya wuu sii hormaray cilmigii waxa la soo gaaray the third generation jiilkii saddexaad ba ayaa soo baxay waxana loo bixiyay waa order of priorities waxa la arkay markii shaqooyinkii jadwal lagu qoray kadibna waqtigii lagu daray ee leeyahay taa waqtigaasan qabanaya waxa soo baxday in shaqooyinku ayna isku wada muhiimad ahayn in ay shaqooyinku ay kala muhiimsan yihiin jadwal cusub la sameeyay hadana jadwalka waxa loo bixiyay order of priority iyadoo waqtigiina waa ku qoran yahay shaqadiina way ku qoran tahay waxa la yiri shaqooyinku sidii u kala muhiimsan yihiin aynu u kala qorno kaas waxa loo bixiyay marka waa the third generation waa jiilkii saddexaad ee maamulka iyo maareynta waqtiga kadib haddana cilmiga uu sii horumaray halka uu maanta joogo ayuu soo gaaray oo ah the fourth generation jiilka afraad waxa loo bixiyay lifetime management waa qaabka aad qorshe ugu sameyn lahayd noloshaada oo dhan waana ka maanta xiisada maanta aynu dhigan doono weeyaan marka Stephen Covey waxa uu yiri in aad maalintaada aad waqti u samayso jadwal u samayso ama inaad weegaa aad joogto aad jadwal u samayso boqolkiiba boqol wuxuu waxa ka muhiimsan horta noloshaada inaad jadwal u samayso markay noloshaadu soo qaabaysanto ee ay jadwal aad u dejisan noloshaada ayaad u soo gudbi doontaa inaad weegaaga dana jadwalayso kadibna aad maalinkaagii aad jadwalayso marka intaas waxay ahayd in yaro taariikh ahaan ay idin soo dulmariyay cilmigan maanta aynu dhiganayno iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray waayahay marka waxaan bilaabaynaa cashirkeennii oo ah qaabka aad qorshe ugu samaysan lahayd naftaada ka hor inta aanan bilaabin waxa aan doonayaa qof walba saddexdan su'aalood ee soo socda inaad ka jawaabto saddex su'aalood baan idin weydiinayaa aniga ha iga jawaabin daruuri maaha inaad anaga noo sheegto laakiin waxa daruuri ah inaad buuggaaga aad ku qorto saddexda su'aalood labada su'aasha ugu horeysa waa su'aal la wada garanaya jawaabteeda laakiin labada su'aalood kale qof walba isku dayna adigu aad ka jawaabto waayahay marka waxaynu galaynaa waa su'aalo loo baahan yahay si clearly oo waadix ah in looga jawaabo marka waxa laga yaabaa su'aalahan maskaxdaada ay fikir u dirayaan waxa aanad muxuu ahaayay wax badan oo ka dhina ay maskaxdaada dib u soo celinaysa hadaba the first question su'aasha ugu horeysa waxa weeyaan why do you live ujeedka aad adduunkan ugu nooshahay muxuu yahay qof walba waxaan ka rabaa su'aasha inaad isweydiiso wala aanad isku daydo jawaabteeda sababta aad adduunkan ugu nooshahay maxay tahay su'aashaas haddii aynu ka jawaabno ilaahay baa bay nooga jawaabay subxaanahu wa ta'ala waxa uu ilaahay yiri wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun jinni iyo insi wax kale looma abuurin kaliya ta waxaan u abuuray bi ilaahay ujeedka adduunyada lagu keenayba waxa weeyaan waa inaad ilaahay caabudo imka gaalada oo kale iyagu jawaabtaas muxuu su'aasha jawaab sax ah uma hayaan cibaadada waxay ka aaminsan yihiin in ay tahay waxoogaa shacaa'ir diiniya maalin xadda kaniisada la tagaa maalimaha Christmas dhiiga la tagaa kaliya ta markaa nolosha iyo cibaadadu way kala duwan yihiin bay aaminsan yihiin laakiin ilaahay inaga wuxuu inoo sheegay subxaanahu wa ta'ala in noloshan oo dhan waxa uu inoo keenayba ay tahay inaynu isaga caabudno haddaba intaynaan tababarkaba bilaabin ama aanad noloshaada wax kala bilaabin waxa loo baahan yahay inaad u niyeysato shay walba oo aad qabanayso in aad u samayso dar ilaahay iyo cibaado ilaahay haddaba wax kasta oo aad qabanayso waxaad isku daydaa inaad u niyooto inuu yahay cibaado ilaahay diinta waa laynooga warramay xataa fuqahadu waxa ay ka warramaan yiraahdaan qofku habeenkii markuu seexanayo
hadduu u niyoodo inay cibaado tahay uu isleeyahay hurdadan waxaad u seexanaysaa waa ku nasasho si aad berito walaad salaada u tukato shaqooyinkaaga u qabsato inta xataa minidada iyo saacadaha uu hurdo ajarkaygii waa leeyahay way u socotaa marka qof walba intaanad wax kalaba aanan la bilaabin waxa aad isku daydaa in shaqo walba aad qabanaysa aad u niyooto inay tahay cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala waayahay taasi waxa weeyaan waa su-aashii koobaad jawaabteediina waynu haysanaa su-aasha labaad aan u baahanahay qof walba ayay khusaysaa waxaa lagu weydiiyey waxa aad bal hadda noo sheegtaa achievementiga ama waxqabadkii ugu muhiimsanaa aad samaysay inta aad nooleed bal qof walba hadda fikir atamanaa waxaan rajaynayaa bal inaad wuxuun aad qabateen kolley waxqabad waad leedihiin waxqabadkiina waxaa ugu horeeya inaad jaamacadda dhigataan taasi waa kow laakiinse bal intaa balada wax soo raaciya intii ay noloshaadi socotay ama aad nooleyd maxaad achievement ama waxqabad aad leedahay qof walba waxaan kaa rabaa keliyaad ha isku badinin waxaan u baahanahay 3 arrimood oo waxqabad oo aad leedahay keliyaata 3 oo maanta aad ku faani kartaa hadii lagu weydiiyo kiini markaa maanta quraanka xafiday wuxuu odhan karaa quraankan xafiday kii muxuu ahaayey ka qayb qaatay muxuu ahaayey khayr la qabanaya ama isbitaal ka qayb qaatay ama wadooyin uu sheegan karaya kiina muxuu ahaayey qof masaakiin caawiye uu sheegan karaya bal achievement maxaad waxqabad leedahay waxaan hubaa inay dadka qaarkood qori doonaan waa zero waxba maan qabin ama intaan soo noolaayo dhan waa zero achievement wax alle iyo waxaan qabtay ma jirto ama haddii ay jiraanna wax la sheega maaha ama waxqabad iska caadiya badii sida jaamacad baan dhigtaa iyo iskuul baan dhigtaa iyo malaakiin ugu badan baa laga yaabaa wax inaadna tirahdaan 2 jaamacadood baan isku dhigtaa way magacaagii abubakar haye ما شاء الله واجيف من هذا نباهنين ويان نقاسي وحو إنه شيء نبلش كريو قري أو فافيه أرتكل فربضان يبوغاق ويسوي ألفي فريقول أجيف من ولي مدي ويان أيه كما كلا أجيف من لي ويه قبلها أوكي هل قاعد دوم حي نوعد حتى هدي أدلي ده أجيفمنت أما هدي أد حتى وحقبض لي ده marka la isku eego intii sanad soo nooleed iyo waqtigii aad soo haysatay marka la isku eego iyo achievement-ka ama wax qabadka aad leedahay halka maxay nooga cad inaanay isku dhigmin xataa dad achievement leedahay taasi marka maxay sheegaysaa in waqtigaagii intii ugu badnayd in ay dayacantay marka shaki la'aan de runta la isku sheegayo weeyaan waayo marka adigu aad naftaada aad wax u sheegayso waxa fiican inaad runta aad ka hadasho oo adigu aad runta isku sheegto taasina su'aal baahid su'aasha saddexaad ee ugu dambeysay intaynaan hawsheena bilaabin waxa weeyaan waxaan u baahanahay faultiska ama ceebaha aad leedahay ee ka hortaagan inaad wax qabad la timaado waynaga imka isla waafaqnay in badan oo inaga mid ay bilaa wax qabad yihiin ama aanay noloshoodii ayna waxba soo qabsanin in badan oo inaga midna wax qabadkooga aad buu u yar yahay bal qof walba su'aasha hadaa doonto adigu gaarna u qarsabo maxaa ceeba oo aad leedahay oo ka hortaagan inaad wax qabato marka ceebu way farabadan yihiin mid baa wuxuu qori doonaa kulli hurdadeyda badan mid baa wuxuu qori doonaa muxuu ahay mar kasto aan qorshe samaysto kuma dhaqmo wixii aan samaystay mid baa waxbu sheegi doonaa marka waxa muhiim ah inaad ogaato horta intaan tababar la bilaabinba waxa ka hortaagan in aad achievement ama aad wax qabad aad la timaado taa waa inaad aynu meel isla dhigno way su'aasha hal daqiiqaad siinaya si aad u dhamaysataan kadibna hawsheena ayaynu si toos ah aynu u bilaaban doonaa